بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أصحابتي ذا شرفت الوالد السلام ملك استوديو دافيه ذا كجوكتي وولاشين مع عبد الرحمن يا channel كيني مهم official. maanta maxay walaashin idin waday waxaan idin waday qiso cajiib ah la yaab leh wax maaragtay laga maaragtay xishooda ah qisadani waa qiso yacni argagax iyo kugu reebaysa maaragtay wax aanad filanaynin yacni u qaadan waa ma maqasheen waa qisadan waxay ku saabsan tahay waxa weeyaan gabar iyo sodogeed ma fahanteen maxay tahay si aad qisadan u faahfaahsan u dhamaysato fadlan maaragtay nala dhamayso videoga wixii feedbackna noogu reeb commentiga waana ku mahadsantiin la socodkiina sharafta badan. gabadhani waxay leedahay waxaan ahay gabar la qabo oo la degan familkii ninkayga uu ka dhashay oo ka kooban walaalihiis ka kooban aabihiis waxaan ku guuri famil ballaaran baan ahay waan isla noolahay intaas oo dumar ah oo ii dumaashiday ay qabaan ayaan isla noolahay waxay tiri nolol habiyo oo wanaagsan ayaan ku noolahay dad tafaahum ka dhaxeeyo iyo maaragtay aan wax buuq iyo xumaan aanay ka dhaxayn baan nahay waxaa jirta bay tiri sodogay ayaa nala nool markaa wiilka hooyadiis ma la noolo way geeriyootay waxaa la nool sodogeed waxay tiri aniga iyo hablihii kale inamadu qabeen sodogay wuxuu ugu jecel yahay bay tiri aniga ilaa iyo dumarku ay ka masayraan odaygana sidoo aniga maaragtay ii qadarinayo amase ii weyneynayo amase maaragtay iyaga mar walba agtooda iiga sameeya sumcad iyo hadal wanaagsan iyo maaragtay uu ii ammaano inamada maxay tahay dumaashiga hortooda iyo xaasaskooda iyo ninkaygaba maxay tahay iyo familkayga dhammaan waxay leedahay gabadhani odaygana waxay saaxiib yihiin aabahay iyo odaygan maaragtay ii sodogaahi waa saaxiib bay tiri nolol wanaagsan ayaan ku noolo degan ninkaygu waa nin fiican haba yaraatee wax maxay tahay dhibaato ahina ma dhex taalo wuu shaqeeyaa bay tiri maalintii 12 saacadood ayuu shaqeeyaa bay tiri waa nin waxay tiri maasha allah tabaaraka raxmaan ah adigu waxay tiri waa reer tafaahum uu ka dhaxeeya bay tiri aniga bay tiri cidda kale wax dhiba kuma qabo oo haba yaraatee cid nabi u haysa ma lahan laakiin iminka waxaan idinka baahan bay leedahay talo arrin aan u qaadan waayo oo argagax ah oo si aan u maareeyo ama maaragtay aan ula tacaamulo aan garan laayahay ayaa jirta bay tiri waayo waxay tiri haddaan arrintiis iraahdo sheeg na waxay igu noqonaysaa bay tiri ana igu soo noqonaysaa oo waxay noqonaysaa waxaan cidna rumaysan karaynin anigana ma qarsan karo gurigaygiina waan ka tago imika ma joogo gurigii hooyaday iyo aabahay baan joogaa familka iyo ninkaygana waxay leeyihiin soo noqo oo kaalay guriga ku soo noqo wax aan kula laabto guriga ii yaalana ma lahan xaqiiqadana ma sheegi karo waxay leedahay gabartana ila soo taliya haddaba arrinta lagala talinaya gabartan waxay tahay waxay tiri sida nolol fiican ugu nooleyn ay waxay tiri aanan wax dhibaato gurigaas ugu qabin ayaa maalin maalmaha kamid ah bay tiri sodogay ayaa ii yimiday markuu sodogay ii yimid ayaa waxay tiri wuxuu ii sitay tiri lacag fara badan lacagtii buu ii dhiibay deedna waan eegay waa maxay lacagtii deedna waxa aaba lacagtan maxaad ka wadaa baan ku bay tiri wuxuu igu yiri bay tiri intuu gacanteeda soo qabsaday lacagta ayatu ka badanba waxaan doonayaa hadaad ii samayso waad helaysaa waxay tiri waan argagaxay waan naxay waxay tiri waan kacay deedna albaabka isku kay hortaagay waxay leedahay wuxuu igu yiri haba yaraatee waxa aan ka rabo cid ogaanaysa ma lahan wax maxay tooday cid ogaanaysa ma lahan lacag inta allaala inta doontidna i weydii subxaanallah waxay tiri waa ayaa igu bariyay indhihiiba ay kala tagay naxdin iyo afariirba waxay tiri ayaan la gariiray waayo bay tiri waa waalidkay waa aabahay bay tiri yoom min al ayaam uma arkin bay tiri aaba kale inuu yahay waayo bay tiri sida aabahay iila tacaamulay bay tiri maantana wuxuu ila soo damcay xumaan iyo faxshar aanan maaragtay ka filanahaynin waa naxay bay tiri wuxuu igu yiri bay tiri haddii aad ka baqayso inaad maaragtay uur qaadid ballan waaye qaadi maysid laakiin anigu adiga waxaan doonayaa wixii aan doonay inaad ii samaysid oo xumaan ah aanad maxay tahay lacag in alaala intaad u baahatid aan ku siiyo inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxay tiri waan naxay waan argagaxay qolkii baan ka baxay waxay tiri waan cararay bay tiri waxay tiri
ninkaygii baa shaqadii ka yimiday si aan u waajahaan garan waaye. waxay leedahay haddaan faamilkii ku idhaahdo war maanta qisadaasa ay qabsatay odaygu saas iyo saasuu igu yiri oo wax igala qabta ama dee iga reeba ama wuxuunan idhaahda bay tiri waxay tiri cidna i rumaysan mayso waa qof weyno oo 70 jira iyo anigoo maaragtay gabadh dhalinyaro ah yaa i rumaysanaya bay tiri. marka ninkayga aan ku idhaahdo aabbahaaba xumaantaas iga dalbaday anigiiba waxay tiri backfire igu noqonaysaa la oranaya naagtan iyadaa xun iyadaa xumaanta rabtay iyadaa madri eesha mar walba way tiri qofta maaragtay dhibanaahi waa aniga bay tiri wax allaala waxaan sameeyay waan garan waayay bay tiri. waxay tiri arrintii waan iska indha tiray waan iska aamusay gurigii baan iska sii joogay. waxay leedahay gabadhani markasta odaygu wuxuu igu soo eegayaa bay tiri indho iyo aragti aanan u maaragtay xamili karin ama aanan u adkaysan karin iyo daymo xun ayuu igu soo eegayaa bay tiri oo yacni dee uu leeyahay yacni yaa weylika hadaad waxaad aan rabaa aanad ii samaynin yacni aday ku jirtaa. waxay tiri haddana markii labaad ayay soo noqotay sheekadii wuxuu igu yiri maxay tooday ilaaba maxay tooday waxaan doonayo inaad ii samaysid la jirta. waxay tiri waan u qaadan waayey waan adkaysan waayey ninkaygii ayaan la hadlay waxaan ku yiri hooyada iyo aabbaha iyo reerkaygii baan u xiisay kaalayo i kaxeemay maxay tooday gurigaygii igee. waxay tiri waa la kaxeeyay gurigaygii baan joogaa bay tiri gurigaygii baan iminka joogaa wax allaala wax aan sameeyo garan maayo si aan waxyeelo garan maayo. gabadhani waxay leedahay ila soo taliya maxaan yeelaa waayo subxaanallah maanta waa wax laga naxo waa wax lagaga argagaxo waa aabaheed yacni dhib la-aan ayuu dhalay waa caruurteeda maaragtay awowgeed waa ninkeeda aabaheed waa qofkii maanta u ahaa muxramka ayaa maanta waxay tiri intuu maaragtay adduunyo oo dhan ka yimid igu yiri aniga waa inaad maxay todi aanad xumaan ii samaysid anigana wax allaale waxaan sameeyo garamaayo. ninkayga wuxuu igu yiri waan kuu imaanayaa soo noqo gurigii reerkaaga kusoo noqo dee wayna sidii tahay gabadhu way xiisootaa reerkooda way u tagtaa way soo booqataa laakiin reerkeeda inay kusoo noqoto weeyaan. waxay leedahay imika si aan kusoo noqdo iyo weji aan kusoo noqdo malahan bay tiri haddaan gurigii kusoo noqdo bay tiri odaygiiba iga sii horeeyay oo meeshiibu joogaa haddaan aabbahayna u sheega bay tiri aabbahay maanta ninkan saaxiibkiis weeyaan bay tiri aan haddaan labadii faamil inaan xumaan dhex dhiga ma rabi oo aabbahay haddii lagu yiraahdo inantaada way xun tahay oo waxaas waxba kama jiraan ama way waalantay dee faamilkii waa la is xumaansanaya anigana bay tiri inuu reerkayga iga burburo oo aan caruurtayda aabahood sidaa ku waayay ma rabi. waayo waxay leedahay gabartani inta maaragtay nin nolol lala wadaago ama shariik noloshaada laga helo ninkaygu uu leeyahay bay tiri waa muxtaram bay tiri waxay tiri aniga wuu wanaagsan yahay baydkiisa iyo ehelkiisa iyo faamilkiisa iyo caruurtiisana wuu u wanaagsan yahay anigoo haysta bay tiri markaas qofkaa wanaagsan isagana qalbigiisa inaan jebiyo oon aabihiis xumaan u geliyo ma rabi waan idhaahda aabahaba xumaantan ila soo maagay waayo beter wuu xumaanaya qofkad waalidkiis wax ka sheegtay anigaba haddii waalidka wax laga sheega bay tiri waan xumaanaya guriga haddaan ku noqdana odaygiiba igaga sii horeeya bay tiri marka waxay rabtaa talo in la siiyo qof walba taladii ku habboon oo gabadhaas siin lahaa oo maaragtay kula talin lahaa ayay rabtaa waayo waxay tiri waxaan ahay dharigii labada dhinacba ka gubtay ma awoodi bay tiri gurigaygii inaan maaragtay ku noqdo. asxaabi ka raali ahaada garaacaas iyo salkadaas ma dhaweeyaa ganjaalka hoos weeyaan haddana waxaad moodaa in halkan agteeda laga garaacayo albaabka muhiim asxaabey gabadhani waxay tiri waxaan noqday dharigii labada dhinac ka gubtay waxaan qisadeeda usoo bandhigayaa bay tiri magaceeda inaan la sheegin maaragtay ama ciday tahay inaan la sheegin laakiin aasa gabar muslim ahaan ah iyo qof walba taladii ku wanaagsan uu siin karo reerkaas ina maxay tahay ay soo siiyaan bay tiri waayo berri buu igu tiri ninkaygu wuu ii imaanayaa wuxuu ilaahay maxay tahay waan ku kaxaynayaa ilaa iyo ilaaba intii aan meermeeri karaayay aan dhahay reerkayagaan u xiisay ama waan la joogayaa ama time baan la qaadanayaa way dhamaatay hadda xaqiiqadii baa la taagan yahay berri wax allaale wax aan sameeyo oo cudurdaaro kale ma jirto bay tiri yaa inaan waxay tiri aan bambada qarxiyo oon wixii jiro sheego oo labada reer colaada dhex dhacdo aniga iyo odaygayga maaragtay aan sidaa isku seegno odaygana aan sumcad darro u soo jiido nafteedana sumcad darro aan u soo jiido iyo bay tiri inaan aamuso oo maaragtay halkii ku noqdo
oo waxaan sameyn lahaa aanay jirin oo odaygana iga horeeyo oo hadduu ogaado inaan aamusanahay isagu imika waxaasoo dhan waxay tiri waxba kama gelin wuxuu aaminsan yahay uu isleeyahay gabadhan ku sheegi mayso amase qof weyn oo maaragtay magac iyo sumcad leh baa tahay oo maaragtay cidi kaama shakinayso amaba dee cidi kuma isma oranayso qofkan weyn ee ahludiinka ayaa maaragtay waxaan sameynaya marka asxaabe ila soo taliya ayay leedahay anigu waxaan oran lahaa asamaxaytooday aniga tala ahaan waxaan oran lahaa hadda maaragtay waxba ha sameynin cidna maaragtay ha u sheegin waalidkaa ha u sheegin ninkaagana ha u sheegin waayo hadda waxaad tahay adiga hadalkaaga iyo hadalkiisa kiisa ayaa baawar weyn isaga hadalkiisa la maqlayaa hadalkiisa ayaa maaragtay wax laakiin kaagu hadda maanta wax kama si aad maaragtay u hubisid ama aad caddayn u samaysid ani waxaan ku oran lahaa adiga oon hadlin gurigaagii ku noqo reerkaagii caruurtaadii ku noqo ilaahay hadduu soo hadeeyo odaygii ilaahay ku abhi waxaad tidhahdaa anigu xumaan uma jeedo waalidkii baa tahay maxaytooda ilaahay ka baq iga dheerow adiguna markaad agtiisa joogta ama guriga joogtid xijaabo ase maaragtay waalidkaagii aad markii hore u arkaysay kolle qof dee waalidkiisii kale gurigii laisla noolyahay dumar bay nahay garbasaar yar ama maaragtay ayaad iska huwanaysaa dad doonta mararka qaarkood madaxa kuu qaawan ayuu kuu imaanaya waa waalidka ma fahantay waxaad sameynaysaa adigana jirkaaga astur waxaan oran la maaragtay si aanu uba helin maxay tooday jaanis adiga iyo isagana dhexdiina masaafo dhig markii hore soo maaragtay waalid ahaan iyo raxmad ahaan iyo naxariis ahaan ugumaad soo dhawaanaynin hadda masaafo dhexdiina dhig ayaan dhihi lahaa gabadhaas oo maaragtay ka fogow wixii waajibaad iyo maaragtay aabanimo iyana aad u sameynaysidna kor ahaan ugu samee laakiin ha u ogolaanin adiga iyo isaga ina meel iskula khulwataan ama keli aad isku noqotiin amaba uu hadal kula soo gaaro haddii laga firsan waayo uu timaado inuu maaragtay kusii maxay tahay dhaga adaygo inuu arrintaas sameeyo waxaad sameysaa si aad maaragtay caddayn u heshid kuu caddaynaysa maaragtay inuu odayganu xumaan damacsan yahay intaasoo jeerna aad maaragtay aad u digtay uu waxba kaa maqli waayay ka duubcod maxay tooday moobilkaaga shid codka ka duub meesha isbi codka gee yar markuu ku yimaado halkaa codka ka duub abhi ilaahay maaragtay ka ashkatee maxay tooday xasuusi wixii xumaanay leedahay haddii uu kusii socdo videogaas iyo codkaa ka duubo meel dhigo marka ku xigta tallaabada ku xigta aad sameynaysaa ha ahaato marka aad maxay tooday isaga odayga codka dhageysi waxaad ku tiraahdaa haddii aanad ammaan isiinin amase maaragtay aanad waxaanaad wada aanad ka laabanin codkaas ayaan faamilkayga u gudbinayaa inamadaadan u dhiibayaa adduunkao dhan baan kugu fadeexadaynayaa waxaan isleeyahay labadaa tallaabo haddaad sameyso inuu dub noqon doono wixii uu xumaanta u sameynayay naftiisii shaydaan u qurxisayna uu ka hari doono waa la waayey oo uu ka hari waayo wuu kusii indhaadeegay maxay tooday adiga wixii karaankaaga waad samaysay yar adigoon cid kale u sheegin oon aabaha u sheegin waayo xumaanta haddii maaragtay ay mar labada reer dhex gaadho weligeed ma baaba'do mana harto adigoo maxay tooday u sheegin si xun maxay tooday u qadoon qaylqaylin xumaan sameynin odaygaaga u yar la fariiso u sheeg waxaad ku tiraahdaa aaba inuu xanuunsanayaan u malaynaya inuu maaragtay uu ka batay baa laga yaabaa maxay tooday stress u qaaday aaba sidanuu ileeyahay intaasoo jeerna way jirtay waana la xishooday inaan kula soo waajaho inaan maxay tooday cid kale u sheegana laakiin maanta aniga adiga wax ma kala qarsan karno siduu aabaha u yahay ayuu aabahay u yahay arrintaas ayaa jirta sidii waalidnimo aynan maaragtay dhibaatana inoo soo gaarin ama il iyo inkaar oo maaragtay dad waalidkood maaragtay wixii xumaana ka reebaya wixii wanaagana faraaya ayn u sameyno ma fahantay sidaas maxay tooday samee ayaan oran lahaa waxaan rajaynayaa markaad odaygaaga sidaa degan ugu bandhigtid caddaynta aad tustid sida aad sheegtayna qof wanaagsan oo maaragtay aanay dhibaato iyo maaragtay degan uu yahay oon wax xumaana aan hore u geysanin waxaan rajaynayaa inay isla fahantiin allahna ceebaha islaamka ha asturo waxaan odaygaana u rajaynaynaa inuu ilaahay xaqa kusoo hago maaragtay uu maaragtay xaqa tuso waxaa laga yaabaa qof weyn weeyaan inuu maaragtay xanuunsan yahay waayo qofka intaanad qofka islaamka aanad maaragtay itihaam ku sameynin ama aanad maaragtay aanad danayin horta intaasoo cudurdaar u samee adigana sida saliimka ee ugu saxsan ee reerkaagana ku badbaadi karo odaygaagana ayadaan iskugu dhici karin labada faamilna aad u kala ilaalisid samee gabar caqli la noqo
maaragtay wixii aad ilaahay ugu dhawaanaysid samee anu intaasaan maaragtay kugula talin lahaa dhammaan asxaabtana waxaan leeyahay idinkuna qof walba taladii ku aadan arrintaas